wasiirka ganacsiga ahayd wasiirka warfaafinta ahayd marka laga soo tago hanaanka Soomaalida wasiirkan meel lagu buuxiyo mooyaane wasaaraddan soo ma baahnayn theory iyo fikir iyo thaqaafad background-kaaga iyo shaqada wasaaraddan ka waran maxaa xiriir ka dhaxeeya waxaan ku fadhino uma aragno wax u qalmaya Soomaaliland laakiin waxaan u aragnaa waxaan ku sugayno midnimada micnaheeduna male waxaan soo dhaweynaynaa in Soomaaliland la midoobo oo madaxda Soomaaliland la siiyo kuraastayada iyo kuwa ay istaahilaan ka weyn oo madaxweynaha ama ra'iisul wasaare asaasan aaminsan hadda waxa midoobaya arbixintaada waa laba dal oo Soomaaliland iyo Soomaaliya la yiraahdo saamiya meesha National Theatre qarashkaasi faraha badan boqolaalka $1,000 la geliyay isbitaalka xooga wali waa qabyo dhismihiisa ma dhamaystirna cusbitaalo kale wali ma kaafin dawladda sida aad sheegayso way hooseysaa ama ba liidataa mudnaanta halka tiyaatarka loo siiyay goobaha kale ee iyana muhiim ku ah ma dhahay tiyaatarka muhiim ma aha maxaa loo siin waaya mudnaan oo cusbitaalada aad u siin weyseen halka aad ku mashquulsheen tiyaatarka dhalinyarada lagu soo jeediyay maalintaas waxaa ka mid ahaa telefishinka qaranka telefishinada private-ka ah inay ka tayo fiican yihiin budget ahaanna waxaan ogahay wasaaradda ayaa badan shaqaale ahaanna badan maxay ku dhacday sidaa warbaahinta dawladda budget ahaan maxaa ku baxa sanadkii ilaa 3 milyan 4 milyan wax dhacay tayadeeda ma haysaa waxay u qalanta inta shaqo weyn bay qarankan u haysaa oo siyaasadii dawladda iyo waxqabadkeedii iyo bulshada annaka qura ayaa u taagan inaan marka aragtida ah warbaahinta private-ka ah inay idinka tayo badan tahay wararka idinkaga soo hormarto taxliilka iyo doodaha idinkaga dheeraysa ma aaminsanin gabagabadan waxaan kusoo gabagabeynayaa shaqada wasaaradda warfaafinta 7 agaasimo ayaa shaqada maalin qura aad ka joojisay maxay ahayd sababtu shaqada xafiiska wasaaradda warfaafinta qaybaha dambe ku soo laaban doona COVID-19 shir jiraa'id oo ku qabatay Muqdisho waxa tir qof alla qofkii xamar ugu dhinta malaria ama xanuun kale waxaan u aqoonsanaynaa COVID-19 aragtidaasi ma cilmiyan bi dawladda gaartay science ma lagu gaaray adiga iyo hadda wiilashaadu waad ogtiin amarka wasaaradda caafimaadka mana wadatiin ma wadataan على تحدر كي ما ودتان وانا لكن كل ما حنا وزير ما ودتان marka dhaqanku saas u adeegay baarlamaanka wayna mid mar wasiir kale soo xirnayn wada aragtaa hadlo way ka tarfiimada ugu timi